kulanti wacan oo wanaagsan. Anigu waxaan ahay Maxamed Cilmi Dhicisu. Barnaamijkii kan ka horreeyay waxaynu ku soo qaadanay weydiimihii ama su'aalihii ahaa waa kuma abwaan, waa maxay gabay iyo gabayga maxaa loogu looqeeya. Barnaamijkan waxaynu wax kaga oran doonaa haddii alla idmo 3 weydiimood oo ah martabadee gabaygu ka joogay Soomaalida, miyay adag tahay curinta gabaygu iyo waa maxay deelqaaf. Haddaba waxaad isweydiinaysaa martabadee gabaygu ka joogay Soomaalida. Waata waxa la dhihi karaa Soomaalidu gabayga iyo gabyaagaba weligeed waa ay jecleed. Gabaygu wuxuu ahaa fariin la qadarin og yahay aad loo dhuuxo, la dhageysto, loona dheg raaraciyo. Wuxuu ahaa dhambaal sida ka qiimo badan dhiganayaasha iyo buugaagta loo qalin qaatay ee dhowrka sane la qoray. Wuxuu ahaa dhaxal reebe iyo halka laga dheegto dhacdooyinka iyo taariikhda dhabta ah ee bulshada. Gabaygu mararka qaarkood duunyo iyo doolarba waa uu ka qiimo sarreeyay ama waa uu ka qaalisanaa. Maxaa wacay isaga ayaa dad nool duunyo iyo doolarba lagu heli jiray. Gabayga waa la xafidi jiray, la qiimeyn jiray, la xambaari jiray, la qaybi jiray. Waxaana qaamuus u ahaa ayaa la dhihi karaa quluubta dadka oo dadka ayaa xafidi jiray. Waxaad isweydiinaysaa miyay adag tahay curinta gabaygu. Dabcan curinta gabaygu waa midda ugu adag maansada Soomaaliyeed. Maxaa wacay miisaankiisa, xaraf raaciisa, qaafiyadiisa iyo sida uu isugu sargo'an yahay ayaa ka sarreysa qaybaha kale ee maansada. Sarreynta oo dhadhan u yeelaysa kana dhigaysa inaan lagu degdegi karin oo aan lala tartami karin. Waxa dhacdo in luqadaha kale la barto deedna lagu gabiyo, balse mucjisada af Soomaaliga iyo gabaygaba marnaba lama arag ayaa la dhihi karaa lamana maqal qof aan Soomaali ahayn oo gabay af Soomaali ah oo toosan tiriyay. bal iska badaaya Soomaalidu oo dhanba gabiyin inta gabaydaahi way yar tahay. Waxa gabiyo qof hiba leh, hal abuur leh, suugaanyahan ah, af Soomaaligana aad u yaqaan. waa sababtaa sirta ka dambaysa in la qadariyo ayaa la dhihi karaa gabayga iyo gabyaaga, maadaama gabaygu uu yahay murti iyo xigmad iyo hibe ilaahay oo usan ahayn caasha garatay. ummad kastana way dhowrataa dadkooda hibada leh. Haddaba waa maxay deelqaaf. waxaynu maqalnaa deelqaaf. waxaa la dhihi karaa asalku waxa weeyaan xeerka maansadu waa inaad hal xaraf ku gabaydo. da iyo qa ama deel iyo qaaf waa 2 xaraf oo kala fog. macquul maaha inaad hal maanso aad deel iyo qaaf ku soo bandhigto hal mar haddii aadan ujeed kale lahayn oo ah jacbur. taa micnaheedu waa in af Soomaaligaagu yar yahay waxna aad isku labayso. warka murtidiis waa in maansada laga ilaaliyo laaxin, leexin iyo lumin. oo haddii aad maqasho hebel gabaygiisa, geeraarkiisa ama maansadiisa deelqaaf baa ku jira, taa micnaheedu waa ma saxno oo waxbaa ka qaldan. qaladkaasi ha noqdo miisaankii, xaraf raaci, naxwihii, guud ahaanba waxa la dhihi karaa af Soomaaligii oo si loo qalday. haddaba weydiimo. maxaa loo gabiyaa? maxaa loo gabiyaa? maxaa laga gabiyaa? maxaase gabayga ama maansada qurxiyo? waxaynu kaga warceli doonaa haddii alla idmo barnaamijka soo socdo. haddase intaa ayaan ku hakinayaa barnaamijkeennii maanta oo aanu kaga warcelinay weydiimihii ama su'aalihii ahaa martabadee gabaygu ka joogay Soomaalida. miyay adag tahay curinta gabaygu? waa maxay deelqaaf? intaynu ku kulmi doono barnaamijkan ka xigo oo xiisihiisa leh waxaan idinkaga tagayaa saaxiibayaal sidaa iyo nabadgelyo.